ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa habeenimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha Abriil sanada 2020 ku soo dhawaada warka habeenimo ee shabakada Sirta Media Sirta Media Sirta Media Sirta Media 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 gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay walaac laga qabo in dib u dhigista furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya saameynta ka dhalatay cudurka corona ee Soomaaliya soo gaaray ayaa sababtay in la hakiyo hawshii baarlamaanka taasoo udub dhexaad u ahayd hanaanka doorashada xigta ee dalka hase yeeshee gudoomiye Mursal ayaa ku adkaystay in xal loo heli doono sidii doorashada xilligeeda loogu qaban lahaa waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay baarlamaanka oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare muddooyinkii ugu dambeeyay ee aan ka soo gudubnay ugu dambeysay 2016 doorashadii la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban marka waxaa la dooranayaa waa 275 xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare ah sidaas awgeed waxay ila tahay intaas in aan xal loo waayi doonin waxaan magacawnay guddi ka soo shaqeeya qodobada ka dhiman sharciga doorashooyinka iyagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hawshiina way wadaan inkastoo arrintan cudurka corona ay saamixi weysay shaqooyinka qaar laakiin si fiican ayay u qabtaan ilaa iyo hadda waxaana aaminsanahay inay soo dhammaystiri doonaan waqtigii loogu talagalana ay doorashadu ku dhici doonto wuxuu Mursal meesha ka saaray suurtagalnimada in loo kordhin doono muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha waddankan dastuur ayuu leeyahay dastuurkaasna xilli ayuu ugu talagalay muddada xilhaynta baarlamaanka iyo midda madaxweynaha waxaan rabnaa intaan xilligaasi la gaarin ka hor in ay doorashada dhacdo ayuu yiri gudoomiye Mursal gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale sheegay in uusan jiri doonin walaac ku aadan in lagu tashado muddo kororsi uu sameeysto baarlamaanka taasoo horseedi doonta in waqtiga xilhaynta madaxweynaha la sii dheereeyo dastuurka kumeel gaarka ah markaad akhriso qodobka 64aad wuxuu sheegayaa in xilhaynta baarlamaanka ay tahay 4 sano qodobka 91aad markaad fiirsana wuxuu dhigayaa in xilhaynta madaxweynaha ay tahay 4 sano marka ma jirto meel ay baarlamaanka ugu bannaan tahay inay xilka kororsadaan baarlamaankuna hadda uma diyaar garoobayo inuu xilka kororsadee wuxuu u diyaar garoobayaa in shuruucdii dhineed uu dhammaystiro horaantii bishan guddiga wadajirka ee kumeel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in ay si kumeel gaar ah u hakiyeen howlihii ay wadeen cudurka corona awgiis guddigan oo ah mid isku dhaf ah oo laga soo kala xuray labada aqal ee baarlamaanka oo si wadajir ah uu guddoonka baarlamaanka u magacaabay ayaa howlaha loo xilsaaray waxaa ka mid ah qoondada haweenka ee baarlamaanka waxay hawshooda bilaabeen bishii Febraayo ee sanadkani su'aalaha ugu waaweyn ee soo ifbaxay kadib hakinta shaqadii guddigan waxaa ka mid ah in doorashada Soomaaliya ay suurtagal tahay in ay dib ugu dhacdo waqtigii loo qorsheeyay gudoomiyaha guddiga Ibraahim Isaaq Yarow oo la hadlay idaacadda BBC da laanta afka Soomaaliga ayaa u sheegay in dib u dhac ku yimaado doorashada uusan hadda xisaabta ku jirin ilaa ay hadda arrintaasi ima muuqato baarlamaankiiba haddii uu isku soo laabtay anaga waan geen karnaa xeerarka doorasho qof iyo cod ahna weli rajo ayaa laga qabaa inay dhici karto ilaahay ha naga hayo musiibo naga celisay iyo cudurkan corona inuu soo xakameysmo oo ay noo suurtoodo isu socodkii iyo in aan dib ugu dhiiran karno nolol iyo mustaqbal ayuu yiri Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sheegay in hadda ay xubnaha guddiga shaqadooda ka sii wadaan guryahooda laakiin ay joojiyeen kulamadii ay isugu iman jireen howlaha ugu waaweyn ee hakadka galay waxaa ka mid ah wada tashiyadii uu guddiga la sameynayay dhammaan dhinacyada kala duwan ee arrintan ay khusayso doorashada baarlamaanka federaalka ayay tahay inay dhacdo dabayaaqada sanadkan halka doorashada madaxweynahana ay ku beegan tahay bishii Febraayo ee sanadka xiga ee 2020 sanadii 2017 ayaa la doortay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa soo doortay madaxweynaha isagoo markaasi kadibna soo dhisay xukuumadda laakiin sida ay dowladda federaalka horeyba u ballan qaaday doorashada xigta ee Soomaaliya ayaa loo balansan yahay inay noqoto mid qof iyo coda haddii ay taasi hirgashay Soomaaliya waxay u tahay talaabo horumar leh oo mudan in lagu riyoodo dhanka kale war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in caawa qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xaaladda cudurka corona iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka telefoonka ay ku wada xiriireen dhigiisa dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka wada hadlay hanaanka iskaashiga labada dal ee xakameynta iyo kahortagga cudurka corona kaasoo ah aafo caalami ah ayaa lagu yiri qoraal goordhow ka soo baxay fila Soomaaliya sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dowladda Turkiga ugu mahadceliyay garab istaagooda joogtada ah weliba xilliyada adag madaxweyne Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay shacabka iyo dowladda Turkiga taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan xilligan oo halis caafimaad oo xooggan ay ku xeeran tahay dalkeena ayaa lagu yiri qoraalka intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkiin hore xiisaha lahaa dib u dhageysa ayagoo rogaal celisa Sirta Media Sirta Media Sirta Media Media Media
cadaalad darrada iyo eexda uu madaxweyne farmaajo ku sameeyey ummadda Soomaaliyeed ma ahan mid la soo koobi karo asagoo si gaar ah ula macaamila beesha uu ka dhashay ee daarood ayuu haddana Soomaalida inteeda kale u qaybiyaa wixii ka soo haray beeshiisa daarood haddii aan tusaale u soo qaadano barnaamijkii u dhawaan daahfure ee Baxnaano kaasoo isaga sheegtay in lacagtu ku bixaysa dawladdiisa ay bixinayso balse dabagal dheer kadib la ogaaday inay bixinayaan hay-adaha qaramada midoobay ee kala ah WFP iyo weliba UNICEF Baxnaano waxaa loo qaybiyey 20 degmo oo Soomaaliya ka mid ah haddaba 20kaasi degmo sidee loo kala degaa yaasi badan inta uu beeshiisa daarood siiyey iyo inta uu Soomaalida kale oo dhan uu siiyey beesha daarood ayaa heli doonta 10 ka mid ah 20ka degmo ee nasiibka u yeeshay deeqaha barnaamijka Baxnaano haddaba 10kaasi degmo waxay kala yihiin degmada Luuq, Afmadow, Badhaadhe, Cabudwaaq, Goldogo, Badhan, Bandarbeela, Taleex, Caynabo iyo weliba Xudun beesha Habiye waxay nasiib u yeelatay 5 degmo oo kaliya shantaasoo degmo kala ah Dhuusamareeb, Hobyo, Beledweyne, Balcad iyo weliba Buule Burde beesha Dirna waxay nasiib u yeelatay 3 degmo oo kaliya kuwaasoo kala ah Sayla, Lughaye iyo weliba Gabiley sidoo kale beesha weyn ee Digil iyo Marifle ayaa nasiib u yeelatay 2 degmo oo kaliya labadaasoo degmo kala ah Xudur iyo weliba Waajid 20ka degmo ee deeqda Baxnaano loo qaybiyey 10 waa daarood halka 10 kalena ay yihiin guud ahaan Soomaalida oo dhan halkaasi kuma eka cadaalad darrada iyo eexda farmaajo ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhiyey waxaan ognahay in Soomaaliya ay wax ku qaybsato 4.5 haddaba wax yar aan dib u eegno qaabkii uu xilalka safiirnimo ugu qaybiyey beelaha Soomaaliyeed kaliya beesha uu ka dhashay ee Mariixaan ayuu u magacaabay safiirka South Africa safiirka Qatar safiirka Imaaraadka safiir ku-xigeenka Suudaan safiir ku-xigeenka Shiinaha safiir ku-xigeenka Malaysia safiir ku-xigeenka Zimbabwe safiir ku-xigeenka Tanzania safaaradda Addis Ababa First Secretary consulka Nairobi commercial attach of Pakistan intaasoo safaaradaha waxaa maamulo waa beesha uu ka dhashay madaxweyne farmaajo ee Mariixaan Soomaaliya beelo kale oo xilalkaasi mudan miyaysan jirin farmaajo sidoo kale xilalka dawladda Soomaaliyeed wuxuu ka dhigtay sidii shirkadu isaga si gaar ah u leeyahay wuxuuna wax ku bixiyaa igu qabiil ma tahay igu beel ma tahay xididkayga ma tahay iyo weliba reer abtiyaashii ma tahay ninka faxshigaasi faraha badan iyo dunuubtaasi waaweyn ka galay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa weli waxa uu ku sii indhacad yahay 2 sano hal iigu daro iyo weliba dib hal ii doorto dhanka kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inuu hoos u dhacay dakhligii soo gali jiray dawladda federaalka Soomaaliya sababo la xiriira cudurka corona wasiir Beyle ayaa arrintaani ka sheegay shir dhanka internetka video conference kaasoo uga qayb galay shir looga hadlayay ka hortagga cudurka corona iyo saameynta uu ku yeelan kara dhaqaalaha gobolka ayuu kaga hadlay xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya iyo sidoo cudurkaani saameyn ugu yeeshay shirkan oo ay shir gudoominaysay Marwa Kristalina Georgieva oo ah agaasimaha guud ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada maaliyadda iyo agaasimayaasha bangiyada dhexe ee dalalka bariga dhexe waqooyiga Afrika Afghanistan iyo Pakistan kuwaasoo ku midaysan ururka dhaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano MENAP Beyle ayaa khudbad uu ka jeediyay shirkaasi waxa uu tilmaamay in ay muuqato saameyn horodhaca oo xanuunka COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya cudurka safmarka ah ee corona waxa uu Soomaaliya u saameeyay si aan hore loo arag sida dalalka kale waxaan wajahaynaa xaalad aan kala cadeen waxaase naga go'an inaan sii wadno iskaashiga dadkeena bahwadaagta caalamka iyo hay'adaha maaliyadeed ee dunida si aan u xaqiijino dhimista saameynta waxyeelada cudurkaani COVID-19 sidaas waxa yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Beyle wasiir Beyle ayaa sharaxay sidoo cudurkaani u saameeyay ilaahi dhaqaalaha dalka asagoo xusay hoos u dhaca canshuuraha dalka laga heli jiray furdooyinka dalka iyo wax soo saarka gudaha maadaama aanay jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan kororka shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay xilligaani la kulmayaan xawaaladaha Soomaaliyeed oo ay ku tiirsaneed nolosha dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo kaalmo ka heli jiray eheladooda ayuu sheegay wasiir Beyle inay qayb ka tahay saameynta muuqata ee Soomaaliya kala kulmayso cudurka corona dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab ay bedeleen habkoodii dagaalka kadib markii guuldarooyin isdaba joog ah oo xooggan ay kala kulmeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna cadeen u tahay dhacdadii habeen hore ee Muqdisho qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxii habeen hore ka dhacay jidka dheer ee isgoyska degmada Heliwa uu ahaa miino macmal ah oo ku qaraxday shabaabkii halkaas ku aasayay xeeladahan ay miinooyinka uga aasayaan jidadka ayaa argagixisada u tahay ololahooda dagaal oo ay la beegsanayaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho maadaama awoodda argagixisada ay sii daciifayso oo aysan wajihi karin dagaal toos ah oo ay la galaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay miciin badeen habkan daciifnimada ah ee jidadka shacabka isticmaalo uga aasayaan miinooyinka ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media.
kordhiya waxa jira arlada sirta media sirta media sirta media waagii baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada sirta media sirta media sirta media waxaasi waafiya kugu soo warinaya warbaahinta sirta media sirta media sirta media waxaasi waafiya kugu soo warinaya warbaahinta sirta media sirta media sirta media adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media ka dhigo weelka ruma sirta media sirta media sirta media 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 adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media ka dhigo weelka ruma sirta media sirta media sirta media 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 sirta media 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 sirta media 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 kusoo dhawow shabakada sirta media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa habeenimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha abriil sanada 2020 kusoo dhawaada warka habeenimo ee shabakada sirta media sirta media sirta media sirta media 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 gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay walaac laga qabay in dib u dhigista furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya saameynta ka dhalatay cudurka corona ee Soomaaliya soo gaaray ayaa sababtay in la hakiyo hawshii baarlamaanka taasoo udub dhexaad u ahayd hanaanka doorashada xigta ee dalka hase yeeshee gudoomiye Mursal ayaa ku adkaystay in xal loo heli doono sidii doorashada xilligeeda loogu qaban lahaa waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay baarlamaanka oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare muddooyinkii ugu dambeeyay ee aan ka soo gudubnay ee ugu dambeysay 2016 doorashadii la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban marka waxaa la dooranayaa waa 275 xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare ah sidaas awgeed waxay ila tahay intaas in aan xal loo waayi doonin waxaan magacawnay guddi ka soo shaqeeya qodobada ka dhiman sharciga doorashooyinka iyagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hawshiina way wadaan inkastoo arrintan cudurka corona ay saamixi weysay shaqooyinka qaar laakiin si fiican ayay u qabtaan ilaa iyo hadda waxaana aaminsanahay inay soo dhammaystiri doonaan waqtigii loogu talagalana ay doorashadu ku dhici doonto wuxuu Mursal meesha ka saaray suurtagalnimada in loo kordhin doono muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha waddankan dastuur ayuu leeyahay dastuurkaasna xilli ayuu ugu talagalay muddada xilhaynta baarlamaanka iyo midda madaxweynaha waxaan rabnaa intaan xilligaasi la gaarin ka hor in ay doorashada dhacdo ayuu yiri gudoomiye Mursal gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale sheegay in uusan jiri doonin walaac ku aadan in lagu tashado muddo kororsi uu samaysto baarlamaanka taasoo horseedi doonta in waqtiga xilhaynta madaxweynaha la sii dheereeyo dastuurka kumeel gaarka ah markaad akhriso qodobka 64aad wuxuu sheegayaa in xilhaynta baarlamaanka ay tahay 4 sano qodobka 91aad markaad fiirsana wuxuu dhigayaa in xilhaynta madaxweynaha ay tahay 4 sano marka ma jirto meel ay baarlamaanka ugu bannaan tahay inay xilka kororsadaan baarlamaankuna hadda uma diyaar garoobayo inuu xilka kororsadee wuxuu u diyaar garoobayaa in shuruucdii dhineed uu dhammaystiro horaantii bishan guddiga wadajirka ee kumeel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in ay si kumeel gaar ah u hakiyeen howlihii ay wadeen cudurka corona awgiis guddigan oo ah mid isku dhaf ah oo laga soo kala xuray labada aqal ee baarlamaanka oo si wadajir ah uu guddoonka baarlamaanka u magacaabay ayaa howlaha loo xilsaaray waxaa ka mid ah qoondada habeenka ee baarlamaanka waxay hawshooda bilaabeen bishii Febraayo ee sanadkani su'aalaha ugu waaweyn ee soo ifbaxay kadib hakinta shaqadii guddigan waxaa ka mid ah in doorashada Soomaaliya ay suurtagal tahay in ay dib ugu dhacdo waqtigii loo qorsheeyay gudoomiyaha guddiga Ibraahim Isaaq Yarow oo la hadlay idaacadda BBC da laanta afka Soomaaliga ayaa u sheegay
in dib u dhac ku yimaado doorashada uusan hadda xisaabta ku jirin. Ilaa ay hadda arrintaasi ima muuqato. Baarlamaankiiba haddii uu isku soo laabta anaga waan geen karnaa xeerarka. Doorasho qof iyo cod ahna weli rajo ayaa laga qabaa inay dhici karto. Ilaahay ha naga hayo musiibo naga celisa iyo cudurkan corona inuu soo xakameysmo oo ay noo suurtoodo isu socodkii iyo in aan dib ugu dhiiran karno nolol iyo mustaqbal, ayuu yiri. Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sheegay in hadda ay xubnaha guddiga shaqadooda ka sii wadaan guryahooda, laakiin ay joojiyeen kulamadii ay isugu imaan jireen. Howlaha ugu waaweyn ee hakadka gale waxaa ka mid ah wada tashiyadii uu guddiga la sameynayay dhammaan dhinacyada kala duwan ee arrintan ay khusayso. Doorashada baarlamaanka federaalka ayay tahay inay dhacdo dabayaaqada sanadkan, halka doorashada madaxweynahan ay ku beegan tahay bishii Febraayo ee sanadka xiga ee 2021. Sanadii 2017 ayaa la doortay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa soo doortay madaxweynaha, isagoo markaasi kadibna soo dhisay xukuumadda. Laakiin sida ay dowladda federaalka horeyba u ballan qaaday, doorashada xigta ee Soomaaliya ayaa loo balansan yahay inay noqoto mid qof iyo cod ah. Haddii ay taasi hirgashay, Soomaaliya waxay u tahay tallaabo horumar leh oo mudan in lagu riyoodo. Dhanka kale, war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in caawa qadka taleefanka ay ku wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xaaladda cudurka corona iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka taleefanka ay ku wada xiriireen dhigiisa dalka Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka wada hadlay hanaanka iskaashiga labada dal ee xakameynta iyo kahortagga cudurka corona, kaas oo ah aafo caalami ah, ayaa lagu yiri qoraal goordhow ka soo baxay filla Soomaaliya. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dowladda Turkiga ugu mahadceliyay garab istaagooda joogtada ah weliba xilliyada adag. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay shacabka iyo dowladda Turkiga taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xilligan oo halis caafimaad oo xooggan ay ku xeeran tahay dalkeena, ayaa lagu yiri qoraalka. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan